marka la gaaro xilli roobaadka magaalada Beledweyne waxaa ku fatahay webiga Shabeelle waxaana ka dhashay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed oo ay sababtay fatahaadda uu sameeyo webiga Shabeelle markay dhibaatada fatahaadda ay timaado bulshada Soomaaliyeed waxay si wadajir ah ugu damqadaan duruufaha soo food saara dadka ku nool magaalada Beledweyne haddaba si looga baaqsado dhibaatada fatahaadda webiga Shabeelle waxaa bulshada Soomaaliyeed looga baahan yahay in reer Beledweyne lagu garab istaago sidii looga hortagi lahaa xalna loogu heli lahaa fatahaadda kor intaysan dhibaataynin dadka ku nool magaalada Beledweyne mid ka mid ah shacabka magaalada Beledweyne ayaa ka hadlay sida looga hortagi karo fatahaadda uu sameeyo webiga Shabeelle ee dhexmara magaalada Beledweyne fatahaadahan waxa lagu hortagi karaa dhulka oo biyaha oo ka soo baxaan oo webiga oo ku soo fataho dhulkaas waxa la doonayaa in la marsiiyo laba webi oo ballaaran oo webina xagga oo maro sida biyaha markay yimaadaan ee labada dhinac biyaha u kala beeraan in biyo xireen la dhiso waa tallaabada ugu wanaagsan ee lagaga hortagi karo fatahaadda webiga Shabeelle ee Beledweyne laakiin waxaa jira caqabado badan oo haysta dadka ku nool magaalada Beledweyne qaarkood ayaa tallaabooyin u soo jeediyay madaxda dawladda Soomaaliya ay xilqaamaano wuxuu ahay had dhisaano meelaha biyo ka bixi lahaayeen iyo meelaha isaga celi lahaayeen ay magaalada ugu xiri lahaayeen dawlad goboleedka iyo dawladda dhexe ee federaalka inay ummadaas walaalahooda ay waxay u qaban karaan u qabtaan aniga laba siyaabood aan qabaa oo gobolkan looga badbaadi karo biyaha laba siyaabood oo qabana waxay tahay in la sameeyo laba webi oo la ogyahay biyaha meesha ay ka yimaadeen waa Itoobiya yacni Itoobiya in sheer la galo la yiraahdo sida hadda Masar iyo Eritrea iyo Itoobiya sheer u galeen in sidaas oo kale loola galo waxaana lagu maareyn karaa laba wey sida aan fikrad ahaanteedii la tahay in webiga la wareejiyo oo qarash badan inta lagu bixiyo asiga dhanba la wareejiyo laga wareejiyo meelaha uu ka soo fatahayo sida magaalada Beledweyne oo kale laga wareejiyo oo meel kale loo wareejiyo gadaal xagga looga daro webiga mid labaadna waxay tahay in la sameeyo biyo xireen waa inay macnaha wada tashi dawladda Soomaaliya waxaan fariin u dirayaa dawladda Soomaaliya oo ugu horeeyay madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo dadka ugu badan ee Beledweyne waxay u barakacaan deegaanka Ceel Jaalle oo qiyaasii 5 kiiloomitir u jira magaalada Beledweyne Cabdulle Maxamuud Cawaali waa gudoomiye ku xigeenka deegaanka Ceel Jaalle oo ay dadka u barakacaan waxna uu yiri dhankiisa anagu haddaan nahay odayaashii xaafadda deegaanka waxaan u awoodnay waa u qabanay dhulkaanay hadda degan waa u raadinay ammaankooda waa u taaganahay amnigooda inaan u saxno wixii hadda u yimaada inaan laga xoogin ambaan la daba marsiin waa ugu taaganahay waxaan jecelahay marka inaad adukuna aad naga gaarsiisaan haddaba fatahaadii webiga Shabeelle kadib maxaa isbedelay magaalada Beledweyne Faysal Cismaan Maxamed waxa uu ka mid yahay dadka ku nool magaalada Beledweyne waxaana uu bulshada u jeediyay talooyinkan waxaan kula talan lahaa bulshada ku dhaqan magaalada guud ahaantood inay noqdaan kuwa horumarka ka shaqeeyo oo aad markaas ay ugu dadaalaan horumarka dhinaca nadaafadda caafimaadka waxbarashada ganacsiga dhismooyinka iyo sidoo kale wadooyinka guud ahaan iyo gawaarida intaba inay ku dadaalaan aadan markaas aan bulshada aan u soo jeedin lahaa oo uu noqdo magaalo ka tilmaaman ama ka muuqato Soomaaliya gaar ahaan goboladan dhexe ee bartamaha Soomaaliya la isu yiraahdo qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Beledweyne ayaa ka warbixiyay ganacsigooda fatahaadii webiga Shabeelle kadib ganacsiga guud ee magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan sidiisa normal ayuu ku soo laabtay dadkii guud ee magaalada dadkii deganaa ee magaalada ka barakacay ee saameynta xoog leh ku yeelatay masiibadii dhacdayna hadda magaaladu waa ku soo laabteen laakiin sidii loogu bartay ganacsiga magaalada Beledweyne oo ahaa si qurxoon inuu micnaheedu dadkii wax u iibsadaan ima aha laakiin waatii hore markii biibaxadii gadaal ay u noqotay oo dadkii dib ugu soo noqdeen kiskis ayuu u furmooyaa alxamdulillah ilaahay mahad leh laakiin waa ganacsiga kulay waa mar hadii albaab aad furutid wax ibadkaaga noqon maysid wixii ilaahay uu ku qori waad helaysaa alxamdulillah laakiin waa nabad qabnaa maasha Allah ganacsigeena waxaan rajaynaynaa inuu si qurxoon sidaan isaga si fiican oo sii noqdo maasha Allah taa ayaan kulay ganacsi ahaantayda fikirkayga saas oo leeyahay shaqada dhismaha biyo xireen weyn ma ahan wax saalan ma ahan wax si fudud lagu gaari karo waxaana loo baahan yahay qorshe kala duwan waxaana sidoo kale loo baahan yahay saan xambaarsan xog dhameystiran si loo ogaado tirada biyaha in la rabo in lagu nafiso biyo xireenka haddii hay'adaha caalamiga ama waddan ay noqdaan inuu sameeyo biyo xireen waxa loo baahan yahay qorshe dhameystiran waana sababta ugu badan ee lagaga faa'iideysan waayay mashruucii dawladda Talyaaniga qodida webiga Shabeelle waxay sidoo kale xal u noqon karaan fatahaadda webiga Shabeelle waana mid qudeeda u baahan qorshe dhameystiran Mustafa Ali Abdu Dalsan TV Beledweyne